السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا سلامي markale kusoo dhawaada muuqaal cusub. Haddii aad ku cusub tahay channelkan, magacaygu waa Naasir, waxaan ahay farshaxanista Soomaaliyeed. Waxa aan sameeyay farshaxanka in ka badan muddo 5 sano ah. YouTube channelkan waxaan u furay inaan uga faa'iideeyo dhalinyarada jecel farshaxanka iyo farshaxanistayaasha bilowga ah si aan uga faa'iideeyo wixii aan soo bartay muddada intaas la eg. channelkan waxaan soo geliyaa muuqaalo kala duwan oo isugu jira farshaxano boobsiis ah, muuqaalo talooyin ah, iyo dhammaan waxa alaala wixii la xiriira farshaxanka iyo fanka. Hore waxaan u soo geliyay dhowr muuqaal kuwaas oo aan idinku barayay qaabka loo sawiro waxyaabo kala duwan haddii ay ahaan lahayd traditional art ama digital art. muuqaalkan kusoo dhawaada maanta waxaan halkan ku sawiri doonaa tufaax. waxaan isticmaali doonaa warqadda cadda ee A4 size-ka ah loo isticmaalo printing-ka ama daabacadaha iyo sidoo kaleeto qalamaanta kalarka ah. qalamadan aniga ma haysto badana wax kuma sameeyo, laakiin si qalamadan waxa ii soo dhibtay gabar farshaxanista ah oo aan ilma habreednahay. waxa la yiraahdaa Farxiya, waa farshaxaniste ama artist Soomaaliyeed. iyadana Instagram-ka ayay soo gelidaa farshaxankeeda. Instagram-keeda hoos ayaan idin soo dhigayaa qaybta description-ka si aad u soo eegtaan sawirada ay sameysay marka muuqaalkan uu dhamaado. sidoo kale shaashadana waa ka arki kartiin. waa tahay haddana muuqaalka aan gudaha u galno. tufaax marka aad sawirayso marka hore waxa aad diyaarsanaysaa sketch ama line art kaasoo ah qaabkiisa inaad sawiratid marka hore inta aadan midabeynin ama aadan hareynin. marka laga hadlayo hareynta wax lagu hareeyaa sawirka qaabab kala duwan. hareynta waxa ay tahay iyo qaababka loo sameeyo waxa jira muuqaal aan uga hadlay oo aan hore channelkaygu soo geliyay qaybta sare ee soo saaraya ama description-ka labadaba. muuqaalkaas waxaan ku sharxay noocyada kala duwan ee hareynta iyo waxyaabaha ay ku kala fiican yihiin iyo waxyaabaha loogu talagalay. hadda doonteed waa soo fiirsan kartaa, balse muuqaalkaasi inta badan waxa uu diiradda saarayaa hareynta sida wax loogu hareeyo qalin rasaaska. muuqaalkani ayaan idinku tusayaa qaabka loogu hareeyo ama loogu midabeeyo qalimada kalarka. waxa aad ka bilaabaysaa shayga meesha ugu iftiinsan, maxaa yeelay qalinka meeshiisa ugu mugdisan haddii aad isticmaashid hadhow waxa adkaanaysa inaad kor saartid midabkaas midabka iftiinsan. sidaas darteed waa inaan u kala hormarinaa sida uu u kala iftiinsan yahay. waxa aan ka bilaabayaa meesha ugu cad oo iftiinka uu ku dhacayo, kadib waxaan ku xijinayaa qaybaha jaalaha ah ee iftiinka uu sii gudbayo, then kadib tartiib ayaan u sii mugdiyeynaynaa hadba meesha iftiinka uu ku yaryahay sida aad ka arki kartaan shaashada. sidoo kale marka aad qalinka warqadda marinaysid waa in aad gacantaada dabcisaa oo aadan ku adkaynin si xariiqaaga aysan u noqonin kuwa adag oo muuqda. haddii aad doonaysid inay isku dhex qasmaan xariiqahaaga, jilci gacantaada si wanaagsan ugu wareeji. asxaabta qaar ayaa Instagram-ka waxa iga soo weydiinaysay sababta aan u maqnaa iyo sababta aan u soo dhigi waayay muddo fara badan YouTube-kayga. haddii aad ku xirnad YouTube-kayga waxaad dareemaysaa in muddo ka badan 1 bil aanan wax soo dhigin, maadaama laga bartay inaan muuqaalada soo geliyo isbuuciiba 1 muuqaal. marka hore asxaabta ku xirnad channelkan waan ka raaligelinayaa dib u dhac igu imaaday. sababta aan ku maqnayna waxay tahay mashquulo yar oo haystay iyo arrimo gaar ah. hadda wixii ka dambeeya waxaan qorsheynayaa inaan soo geliyo toddobaad waliba muuqaal cusub in la soo geliyo channelka. haddii aad doonaysid muuqaalo in lagu soo sameeyo, tusaale ahaan haddii aad u baahan tahay inaad baratid qaabka loo sawiro mooska ama qaabka loo sawiro gacanta ama qaabka loo sawiro lugaha, ama aad doonaysid inaan kaaga jawaabo weydiimo kala duwan, waxaad igu reebi kartaa qaybta comments-ka ama waxaad igala soo wadaagi kartaa ciwaankayga Instagram-ka halkaasoo inta badan aan active ka ahay. sidoo kaleeto waxaa jirta asxaab fara badan oo muuqaalo kala duwan soo dalbatay. qaarkood ayaa weydiinayay ma noo sheegi kartaa Naasir qalabka aad isticmaashid iyo meesha aad ka heshay.
iyadana muuqaalan ka suubin doonaa qalabka kala duwan ee isticmaalo haddii ahaan lahayd qalimadeeda, haddii ahaan lahayd markeriska isticmaalo, warqadaha iyo guud ahaan qalabkayga farshaxanka. sidoo kale waxaan sameyn doonaa muuqaalo su'aalo iyo jawaabo ah. Instagram-kayga ayaad waxa igu soo direysaan, Instagram-kayga ama YouTube-ka ayaa waxa igu soo weydiineysaan su'aalo kala duwan. inta isku aruuriyo su'aalahaas ayaa waxaan ka sameyn doonaa hal muuqaal oo dhameystiran insha Allah. Isagana waxaan soo gelin doonaa toddobaadyada soo aadan. waa tahay muuqaalkan inta ka dhima ma sii wada hadli karo, ha yeeshee waxaan ku wada sheekaysan karnaa qaybta commentiska. su'aasha haddii dhaaftid waan kaga soo jawaabayaa. hana ka iloobin muuqaalkan inaad like tiraahdo, asxaabtaada aad la sheergarayso si ay uga faa'iidaystaan iyagana hadday yihiin kuwa farshaxaniistayaal ah ama dad jecel inay farshaxanka bartaan u sheergaray. sidoo kale channelka haddii aad ku cusub tahay subscribe dheh, haddii aad hore ugu xirnaydna soo dhawow, guriga waa gurigaagii. waxaan kuu ballan qaaday haddii aad ku xirnaatid muuqaaladeeda in aad farshaxanka wax badan ka baran doontid, wax badan aad ka kororsan doontid. sidaan hore idinkuugu sheegana su'aal waliba oo aad qaybta commentiska ku dhaaftaan ama aad Instagram-kayga igu soo dirtaan waan idinkaga jawaabayaa. haddii aad u baahan tahay meelo kale inaad igala soo xiriirtidna, iyo sidoo kale waxaan leeyahay page Facebook ah, ciwaan TikTok ah, ciwaan Twitter, Gmail, dhammaan waad igala soo xiriiri kartaa. dhammaan baraha bulshada ee kala duwan waxaan kusoo galaa hal username kaasoo ah @Nasir Roble. YouTube-ka, Facebook-ka, Instagram-ka, Twitter-ka, TikTok, Facebook, dhammaan haddii aad ka raadisid waxaad ku helaysaa halkaas username. sidoo kale haddii aad Google-ka gelisid magacayga Nasir Roble wuxuu kuu soo saarayaa dhammaan barahayga bulshada aan isticmaalo, halkaas ma iga soo raaci kartaa. hadalkii aan idinku badanin daabashamaan.